السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسنال سومالي فانس ميل كسو جوجتان iyo si kasto muuqaalkayo iyo codkooda idin soo gaarayo ku soo dhawaada markale iyo barnaamij aan ku qaada dhigi doono sababta sababaysa in Arsenal garan shaka ay ka dhigto kabtankeeda joogtada Arsenal. maanta oo jimcaha ayay ahayd markii tababaraha kooxda Arsenal Unai Emery uu ku magacaabay in kabtankiisa joogtada xilli ciyaareedkan uu noqon doono xidiga reer Switzerland ee Granit Xhaka. haddaba Arsenal ayaa ugu dambeyn soo afjartay isjiiditaankii iyo hadaladii iyo waliba waxyaalihii badanaa ee ku saabsanaa kabtankooda mustaqbalka dambe kadib markii Unai Emery maanta oo jimcaha ku dhawaaqay in Xhaka uu noqon doono hogaamiyaha rasmiga ah ee jabhadda waqooyiga London. tababaraha Gunners ayaa ugu dambeyn go'aansaday inuu ogolaado ciyaartoydiisa inay doortaan kabtankooda xilli ciyaareedkan isagoo u magacaabay in tartankan ay qayb ka ahaadaan ilaa iyo 5 ciyaartoy. kabtanimada ama magacaabista Xhaka ayaana timi kadib doorasho ay sameeyeen ciyaartoyda Arsenal. haddaba sida uu qoray wariyaha aadka looga dambeeyay BBC-da ee soo tabiya wariyaasha ama wararka soo tabiya ayaa sheegay ku soo qoray Twitter-kiisa tababaraha Arsenal Unai Emery waxa uu Granit Xhaka u magacaabay kabtanka joogtada ah ee kooxda muddo dheer kadib oo kooxdu kabtalaan ahayd kadib bixitaankii Laurent Koscielny. waxa uu ciyaartoydiisa kala tashaday go'aankiisa ugu dambeeyay Xhaka waxa uu Arsenal hogaamiyay 6 kamid ah 8 kulan xilli ciyaareedkan waxaana uu maanta noqday kabtanka rasmiga ah ee kooxda 27 sano jirkan reer Albania laakiin haysta dhalashada Switzerland. arinta kale xiisaha badan ayaana in wali Arsenal ay magacaabin kabtan ku xigeenka ee kooxda walow ay u tartamayaan ama ay ugu cadcad yihiin labada weeraryahanayadka looga dameeyo Alexander Lacazette iyo wiilka dhashay isagoo goolasha dhalinaya Pierre-Emerick Aubameyang. haddaba maxay ahayd sababta ugu dambeysay in Xhaka uu noqdo kabtanka Arsenal? 3 sababood ayaana sababtay. sababta koowaad ayaa in macalinka reer Spain uu xidigan u arko mid dhiig leh oo hogaamin kara kooxda xilliyada ay ka xun tahay. waxa uu qodobka koowaad u yahay in xidigan uu kooxda uu dhiig u yeeli karo xilliyada ay kooxda ka jiifto maadaama uu yahay xidig inta badan ku ordaato albitarada ama garsoorayaasha ciyaarta. sababta labaad ayaa inuu xidigu ka ciyaaro booska dhexda ee burburiyaha taasoo ah inuu u dhow yahay daafaca dama ee kooxda waxaana ay la micnataa in haddii khaladaad dhanka daafaca uu jiro uu yahay hogaamiyaha kooxda uuna xalin doono lana hadli doono daafaca markaas khaladka sameeya. saddexaad ayaa inuu hore u soo ahaa kabtan koox isagoona soo hogaamiya kooxda kabtanka ahaan jiray kabtanka kooxda reer Jarmal Borussia Mönchengladbach oo hore kabtan ugu soo ahaa taasoo la micno ah in uu leeyahay khibrad kabtanimo ama khibrad hogaaminimo oo kooxda ah. taasi waxa ay la micno tahay in xidigaha la tartamaya ee Lacazette iyo Aubameyang ay uu ka khibrad badan yahay dhanka marka ay noqoto kabtanimada. kulankiisa ugu horeeyay soo kabtan rasmi ah waxa uu noqon doona kulanka Old Trafford Arsenal kula shaqeysan doonto kooxda maslaxariyada ka ciyaarta ee Red Devils Manchester United. وأدمن وريا محمود فانتاسيك يا دمان أدمننا هالكن أو إذا كنت تجي سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ.